madax ka tirsan ciidamada xoogga Puntland ee BSF oo ka ambabaxay Boosaaso ayaa qaaday daawo loogu talagalay in la gaarsiiyo degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari. daawadan in la geeyo degmada Carmo ayaa timi kadib markii madaxda sare ee ciidamada xoogga Puntland ee BSF ay ogaadeen in ay jirto baahi daawo oo ka jirta xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmadaasi. xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Carmo ayaa ah mid si weyn ugu shaqeysa degmada, balse uu kala go'o ku yimid daawooyinkii la siin jiray hooyada iyo dhallaanka booqashada xaruntaasi ku yimaada si caafimaadkooda loola tacaalo xilliyada xanuunada ay yimaadaan. wareejinta daawadan oo ka dhacday xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Carmo ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Carmo, madaxa caafimaadka ee degmada iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga Puntland iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha degmada Carmo iyo maamulaha caafimaadka degmada ayaa saraakiisha ciidamada xoogga Puntland ka gudoomay daawadan, waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay Colonel Bashiir Bicir Faarax Guutaale oo ka tirsan ciidamada xoogga Puntland. halkan waxaan keenay daawo dhan oo caafimaad ah oo ugu talagalnay degmada Carmo. gudoomiyaha oo aan la xiriirno wax badan aan la soo xiriirnay baahidaas loo soo gudbiyay caafimaadka xaggeeda ah. dawadii waxaan ku wareejinay gudoomiyaha dhakhaatiirta caafimaadka ee degmada Carmo. markastaba ciidanka BSF waxay hortaagan yihiin shacabkooda, waxay caawinayaan, garab galayaan inay wax qabtaan, caawiyaan dhinacna qorigay ku wataan, dhinacna dawo haday noqoto, haday raashin noqoto, biyo dhaamin haday noqoto. markastana taasaan sii wadaynaa hadduu Allaydmo. booso kaliya ku koobnaan Bari meel kasta waa tagaynaa Mudug. maamulaha caafimaadka degmada Carmo Faadumo Cabdullaahi Cartan ayaa sheegtay inay keenista daawadan ay ku soo beegantay xilli baahi weyn loo qabay, waxaana ay uga mahadcelisay madaxda iyo ciidamada xoogga Puntland daawadan ay soo gaarsiiyeen xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Carmo. waxaanu hadda maanta noo yimi oo wafti noogu yimi iyagoo noo wada adeeg madaxda BSF iyo hogaamiyahooda iyo dhammaan dadkooda iyo dhammaan wada socdo oo nagu wareejiyay daawadaas ay ka kooban tahay cadad aad u tiro badan oo wax weeye kala nooc ah looguna talagalay hooyada iyo dhallaanka kalena wareegay gudoomiyuhu, maadaama gudoomiyuhu muddo la xiriirayay kana dalbaday daawadaas oo aan online degmada. waxaan u mahadcelinaynaa waxa weeye mahad ilaahba iska leh, ka sokona waxa weeye qolada BSF oo noo keentay daawada, because maanta waxay tahay maalin u baahannahay oo aan aad ugu baahannahay. marka waa ku mahadsantihiin daawada aad noo keenteen, iyadoo ay tahay maanta baahidii ugu darayd oo nahaysatay daawo la'aan ay tahay. waxa weeye waa mahadsantihiin, waan idinka gudoonnay insha Allah. waxaad ilaahay markay idinku horeyne waxa weeye waa inaad nagu soo celcelisaan oo markasta noo keentaan biidnillah. waan idinka gudoonnay ilaahay idinkii insha Allah, taa iyo midka badanba waa sugaynaa insha Allah. gudoomiyaha degmada Carmo ayaa sheegay inay ku bogaadinayaan madaxda iyo ciidamada xoogga Puntland sida ay shacabkooda mar walba u garab taagan yihiin. maantay waxaa degmada nagu soo booqday ciidanka security-ga Puntland Forces BSF lagu soo gaabiyo oo hogaaminayo Colonel Bashiir, taasoo ay na soo gaarsiiyeen dawo aad u wanaagsan, aad u tayo badan oo ah dawo baahi weyn loo qabay degmadana looga qabay. marka hore waa uga mahadcelinaynaa. dawadiina waanu ka gudoonnay, waxayna keeneen xaruntii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. runtii waxaanu mar labaad uga mahadcelinaynaa BSF, ciidanka BSF in ay mar kastaba ay bulshadooda la garab taagan yihiin dhinac kasta caawinaadda bulshadooda iyo dadka jilicsan. waxaan leenahay runtii arrintaas waan idinku bogaadinaynaa. waxaanuna jecelnahay insha allahu tacaala meel kastoo baahi ka jirto in aad magaraysa gaarsiisaan insha allahu tacaala. waxaanuna rajaynaynaa in ay booqashadan ugu badin doonaan, baahiyaha kala duwan insha allahu tacaala ka jawaabi doonaan. waana message aad u qiimo badan oo ay soo gaarsiiyeen maanta degmada. runtii waanu uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Colonel Bashiir Bicir Faarax Guutaale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga Puntland ee BSF ayaa daawadan ku wareejiyay gudoomiyaha degmada iyo maamulaha caafimaadka degmada Carmo. degmada Carmo waxa ay ka tirsan tahay gobolka Bari, waana magaalo marba ka dambaysa sii ballaaranaysa, waxaana ku nool bulsho aad u tiro badan. daawadan ay geeyeen ciidamada xoogga Puntland waa mid dabooli doonta baahida daawo ee ka jirta xarunta hooyada iyo dhallaanka
ee degmada Carmo. Axmed Muuse Cali, Axmed Jookar, Jubbaland TV, degmada Carmo, gobolka Bari.